maanta waxaan leeyahay dadnimoy oy gobonimoy oy dadka ku faanaya qabiilka kuwa ku faanaya hayb kuwa sheeganaya inay yihiin laandheerayaal waynu gumuuni maanta gu noqoteen walaalkiin baa gubteen qof islaamo idin la mid ah ayaa ka faanaysaan oo waliba ka faanteen waa faani jirteen hadde aad dab qabadsiiseen maantaanu garooshiyeed ku haysan weli war xaggee qabtay madaxdii geeska afrika nin madaxweynaha oo af soomaali ku hadlaya oo u tacsiiyey ma maqal xitaa xaggay jiraan waayo waxaa kale wax miclaaki jiray ma qoyska hadda inagu aynu ka hadlayno saa uga hadlayno madaxweynaha uu hoostiisa ku dhintay waa farmaajo erey mool walaa tibis u tagay iska daaya ka ku xiga ee ra'iisul wasaaraha ee waliba haybta dagaalamaysa ma hadlin dad inagoo kala qaylinaya ma madaxdii ma gobonimadii ma dadnimadii ma qarnimada sheeganayno maanta waxay ahayd in loo wada kaco ma ahayn qoyskan bariis la siiyo ama dhar la siiyo in loo kaco waxaan wax laga qabto adeer maalbo ay dhacdaa markaad weydiinaysaad leedahay arrimo noocan ma dhacan aniga maxamed ahaan haybahaasan ka mid ah waan ku quraacdaa waan ku qadeeyaa waan ku seexdaa waxaa la gulqaniyada jaahilka maalba toban jaahil baa iga hor yimaada oo igoosta qayb ka mida jirkayga waxay dhegteydaa soo gaarsiiyaan taay ka hadleen mayta kalama maqashiyo laakiin waxaan la kulmaa haddana markaan 100 noocaasa soo jiiro qof bini aadmiyaan la kulmaa oo aan ku socdo dhowr saacadood oo dambe oo fahmo qiimaha iyo wada dhalashada iyo waxaan sunnaha markaan soo xusuusto taariikhda noloshayda aniga maalintii horreysay iskuul gelayay mar baan damcayna cararo suga dhaxaysa rag waaweyn oo ila daa oo caqliga ku daafada iyo ku jiray isla weynaanta oo macallimiin sheeganaya imtixaankayga qaadiyo nin kamid wuxuu igu yidhi maxaa ku keenay halkan soo inay hebel ma jirto ma birtiinii iska tumatid toddoba jir baan ahay bal ka waran ummadda intii meesha joogtay oo aamusiin lahaydna qosol bay qawladii wada waaxeen ilmo yar intaa leeg maxaa ku dhici kara waan xusuusnahay